Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeeni Tayatoon Media. Waxaynu halkii ka sii ambaqaadi doonaa taariikhdii taxanaha inoo ahayd ee dowladdii Cusmaaniyiinta. Qaybtii horena waxaynu soo dhammaynay taariikhdii Suldaan Mustafihii saddexaad. Haddaba maanta waxaynu ka sii ambaqaadaynaa taariikhda Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad. Haddaba daawadayaal intaynan muuqaalkeena gudagelin, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambaanu soo gelin doonno annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad waa suldaankii 27aad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta, kaasoo xukunka hayay intii u dhaxaysay sannadihii 1774 ilaa 1789 miilaadiga. Dhinaca noloshii hore ee Suldaan Cabdulxamiid. Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad wuxuu ku dhashay magaalada Istanbul 20kii bishii Maarso ee sannadkii 1725 miilaadiga. Aabbihii waa Suldaan Axmedkii saddexaad, hooyadiisna waxaa la odhan jiray Suldaanad Raabiya Sirmi. Sidii caadadu ahaydba Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad inta badan noloshiisa wuxuu ku xidhnaa qasrigii Tobaakii Balays, gaar ahaanna muddadii ay xukunka hayeen walaalkii Suldaan Mustafihii saddexaad iyo Suldaan Maxamuudkii koowaad. Wuxuuna halkaas ku qaatay muddo 37 sano ah ilaa uu la wareegay carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta sannadkii 1767 miilaadiga. Haddaba Suldaan Cabdulxamiid muddadii uu halkaas ku xidhnaa waxaa waxbarashadiisa ku dadaashay hooyadii Suldaanad Raabiya Sirmi, waxayna aad uga dhistay oo bartay taariikhda iyo nashqadaynta. Dhinaca caleemasaarkii Suldaan Cabdulxamiid. Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad wuxuu xukunka la wareegay maalintii uu dhintay Suldaan Mustafihii saddexaad 22kii bishii Janaayo ee sannadkii 1774 miilaadiga. waxaana lagu caleema saaray xaflad ka dhacday masjidka Aba Ayuub al-Ansaari. sidii caadadu ahaydna halkaas ayaa lagu guddoonsiiyey seeftii Suldaan Cismaan binu Ardaqrool oo isagu ahaa aasaasihii dowladdan. maalintii xigtay ayaana aaskii Suldaan Mustafihii saddexaad loo dareeray. haddaba Suldaan Cabdulxamiid markii uu xukunka la wareegay, dhibaatooyin dhaqaale oo aad u baahsan ayaa ka jiray gudaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta. arrintaasina waxay sababtay inaan abaalmarinadii caadiga ahaa ee loo qaybin jiray ciidamada marka suldaan cusub oo xilka la wareego aan wakhtigaas ciidamadii inkishaariya loo qaybin, sababtoo ah khasnadihii dowladda oo dhan ayaa faaruq ahaa, waxaana baabi'iyey dagaaladii ugu dambeeyey. wakhtigaasna Suldaan Cabdixamiid wuxuu u sheegay ciidamada inaan wax abaalgud ah sannadkan la siinayn khasnadaha dowladda oo madhan awgeed. isla wakhtigaas suldaanku wuxuu warqad u diray sadrulacdamkii lagu magacaabi jiray Muxsin Sadii Maxamed Baasha oo wakhtigaas ku sugnaa dhanka jiidda hore, wuxuuna ku wargeliyey inuu hawshiisa sii wato. xilligaasna dagaaladii Cusmaaniyiinta iyo Ruushka ayaa jiidda hore ka socday. dhinaca kale Suldaan Cabdulxamiid wuxuu bilaabay inuu dib u habayn ku sameeyo ciidamada qalabka sida ee boqortooyada. sidoo kale wuxuu tirakoob ku sameeyey ciidamadii inkishaariya. sidoo kalena wuxuu dayactir ku sameeyey ciidamadii badda oo agabkoodii uu cusboonaysiiyey, wuxuuna aasaasay koox cusub oo dhinaca madaafiicda ah. dhanka kale Ruushkuusna wuxuu diyaarinayay dagaal militari si uu u soo ceshado magacii iyo sharaftii uu lumiyey dhammaadkii maalmihii marxuum Suldaan Mustafihii saddexaad. wakhtigaas oo Ruushka laba guuldarro oo isxiga uu kala kulmay ciidamadii Cusmaaniyiinta. sidaas darteed bishii 6aad ee sannadkii 1774 ciidamadii Ruushku waxay ka soo tallaabeen webiga Doona, waxayna u soo dhaqaaqeen dhanka magaalada Varna oo ka tirsan Bulgaariya. waxayna halkaa kula kulmeen ciidankii uu soo diray sadrulacdamkii Muxsin Baasha. ciidankaasna waxaa hogaaminayay taliye la odhan jiray Cabdirasaaq Efendi. labada ciidano waxaa dagaal aad u qadhaadhay ku dhex maray meel lagu magacaabo Qusliig 14kii bishii Julay ee sannadkii 1774. dagaalkaasna Ruushka ayaa ka guulaystay ciidamadii Cusmaaniyiinta. haddaba guusha Ruushka kadib, boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaa lagu qasbay inay aqbalaan qodobadii ay dowladda Cusmaaniyiintu diiday wakhtigii Suldaan Mustafihii saddexaad shirkii magaalada Barchest. sidaas awgeedna labada dowladood waxay wada galeen heshiiskii la odhan jiray Kinaarja, kaasoo dhacay 22kii bishii Julay ee sannadkii 1774 miilaadiga. heshiiskaasina wuxuu ka koobnaa 28 qodob, waxaana ugu muhiimsanaa 5 qodob. qodobka koowaad,
in madax bannaani buuxda la siiyo Crimea iyo Serbia oo Crimea iyo Serbia waxay ka mid ahaan jireen boqortooyadii Cusmaaniyiinta waqtigaana heshiiska waxa lagu wada galay inay ka madax bannaanaadaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta sidoo kalena ay dalka Ruushka ka madax bannaanaadaan qodobka labaad in maraakiibta Ruushka la siiyo xurriyad ay ku maraan badda madow iyo badda dhexe 3 in boqortooyada Cusmaaniyiintu ay sanad walba jizyo siiso Russia 4 in la siiyo Russia xaq ay ku ilaalinayso Masiixiyiinta Orthodox-ka ee ku nool dhulka boqortooyada Cusmaaniyiinta iyo sidoo kale in kiniisad laga dhiso magaalada Istanbul qodobka shanaad in Cusmaaniyiinta dib loogu soo celiyo dhammaan dhulkii Ruushku qabsaday marka laga reebo Crimea iyo qalcadda Krish haddaba heshiiskaas kadib Suldaan Cabdulxamiid wuxuu bilaabay inuu dib u habayn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku sameeyo arrimaha gudaha boqortooyada wuxuuna markii ugu horeysay awoodda saaray inuu xakameeyo kacdoonnadii ka socday gudaha boqortooyada gaar ahaan kacdoonkii uu waday ninkii la odhan jiray Sahiir al-Cumar kaasoo xaruntiisu ahayd magaalada Akra ee Suuriya oo iskaashi la samaystay ciidamadii Ruushka sidaas darteed Kabtan Xasan Baasha oo ahaa gudoomiyihii Algeria waxaa loo xil saaray inuu dhinaca badda ka soo weeraro halka Maxamed Bey Abu al-Dahab oo isna ahaa gudoomiyihii Masar lagu amray inuu dhinaca dhulka ka soo weeraro magaalada Akra ugu dambeyntiina Sahiir al-Cumar waxaa lagu dilay buuraha Zafaad isagoo markaa baxsada sidoo kale waxaa la soo afjaray kacdoonkii ka socday jasiiradda Mooriya waqtigaasna Suldaan Cabdulxamiid wuxuu ku guuleystay inuu dhammaanba soo afjaro kacdoonnadii ka jiray gudaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta sidoo kalena dib loo soo celiyo kala dambeyntii iyo amnigii dhinaca lumintii Crimea Ruushku wuxuu jebiyey heshiiskii Qinaarja heshiiskaas oo ay wada galeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo boqortooyadii Ruushku kadib markii Ruushku bilaabay inuu Crimea u diro rag khilaaf ka abuuro gudaha dalka Crimea si uu marmarsiiyo uga dhigto inuu farageliyo arrimaha dalkaas haddaba rabshadihii waxay sababeen in Ruushku 70,000 oo askari soo geliyo dhulka Crimea sidaasna uu ku qabsado sanadkii 1774 miilaadiga qabsashada Crimea awgeedna Suldaan Cabdulxamiid aad ayuu uga cadhooday arrinkaas waqtigaasna wuxuu go'aansaday inuu iclaamiyo dagaal ka dhan ah Ruushka si ay ugu khasbaan Ruushku inuu ixtiraamo heshiiskii qodobadii Qinaarja heshiiskaas oo Crimea siinayay madax bannaani siyaasadeed oo buuxda oo sidaynu soo aragnay waxay ku heshiiyeen labada dowladood in Crimea ay labada boqortooyaba ka madax bannaanaato laakiin waqtigaas Faransiiska ayaa ku qanciyay Suldaan Cabdulxamiid inaanu dagaal iclaamin sababtoo ah Ruushka oo mar hore dagaal u diyaar garoobay sidoo kale wuxuu Faransiisku sheegay suldaanka inuu og yahay heshiis militari oo qarsoodi ah oo dhex maray boqorada Ruushka iyo boqorka Austria waxayna ku heshiiyeen inay si wadajir ula dagaalamaan Cusmaaniyiinta haddii dagaal cusub ka dhex qarxo Ruushka iyo Cusmaaniyiinta heshiiskaas oo ka dhacay magaalada Karsan waxayna ku heshiiyeen haddii ay ka adkaadaan ciidanka boqortooyada Cusmaaniyiinta in Ruushku qaato dekedda magaalada Uzi iyo sidoo kale Ushakov iyo qaar ka mid ah jasiiradaha dhulka Ruum Austriana waqtigaas waxa loo qoondeeyay inay iyana qaadato Serbia iyo Bosnia halka Venetianiskana loo qoondeeyay inay qaadato jasiiradaha Mooriya Crete iyo Qubros haddaba Suldaan Cabdulxamiid markuu arkay inaanay dowladdiisu awood u lahayn inay iska caabiso Ruushka iyo Austria oo isku dhinaca ayuu door biday inuu aqbalo taladii Faransiiska sidaas darteed Crimea wuxuu aqoonsaday inay ka mid ahaato Ruushka sanadkii 1774 miilaadiga si kastaba ha ahaatee ujeeddadii Ruushka iyo Austria waxay ahayd in dagaal qarxo si ay u helaan rabitaankooda sidaas awgeedna waxay ka shaqeeyeen sidii dagaal u dhici lahaa ugu dambeyntiina boqoradii Ruushka ee lagu magacaabi jiray Katrina waxay mar kale ka xanaajisay Suldaan Cabdulxamiid kadib booqashadii ay ku tagtay dhulka Crimea sanadkii 1787 miilaadiga halkaas oo ay ka dhisatay qaanso ay ku qortay wadada Byzantine qoraalkaasna waxay ugala jeeday in boqortooyadii Byzantiyiinta ee Orthodox-ka ahayd ee ay hore boqortooyada Cusmaaniyiintu u qabsatay ay dib u soo celin doonto sidaas darteedna boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Ruushka intaas kadibna boqoradii Ruushka ee Catherine waxay warqad u qortay generaalkeedii lagu magacaabi jiray Potemkin oo isagu ahaa taliyihii hogaaminayay
ciidamadii Ruushka ee ku sugnaa Crimea, waxayna ku amartay in la dedejiyo qabsashada magaalooyinka Bandar iyo Ozi oo iyagu xuduud la wadaagay Crimea ka hor intaanay iman ciidanka Cusmaaniyiintu. Kadibna generaalkaasi isagoo amarkii fulinaya wuxuu u dhaqaaqay dhanka magaalada Ozi, kadibna wuxuu saaray magaalada Godoomin. ugu dambayna waxay magaaladu gacantiisa ku dhacday 19 bishii Noofembar ee sanadkii 1788 miilaadiga. dhanka kale, isla waqtigaas Austria waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhana boqortooyadii Cusmaaniyiinta si ay u taageerto Ruushka. sidaas awgeedna, imbaradorkii la odhan jiray Josefkii labaad ee Austria wuxuu ciidan u diray magaalada Belgrade oo uu doonayay inuu qabsado. balse ciidankii Cusmaaniyiintu guul weyn ayay ka gaadheen ciidankii Austria, oo ciidankii Austria si xun ayaa loo jebiyey, waxayna niyad jabkii kula noqdeen magaalada Timsora. haddaba guusha Cusmaaniyiintu ka gaadheen Austria wax yar kadib waxa geeriyooday Suldaan Cabdulxamiidkii koowaad 8 bishii Abriil ee sanadkii 1789 miilaadiga. waqtigaas uu geeriyoodayna wuxuu ahaa 66 sano jir, wuxuuna xukunka hayay 15 sano iyo 8 bilood. waxaana xukunkii ka dhaxlay Suldaan Saliimkii saddexaad, oo aynu taariikhdiisa qaybta dambe ku arki doono. maantana halkaa hay noogu joogto. wassalaamu calaykum.